dambeysay maadada shareecada iyo qaanuunka ayay waxbarashadii u soo dhammaatay. waxaa la gaaray xilligii ay qalin jabin lahaayeen. keliya 2 bilood ayaa uga harsaneed in ay qareenno noqdaan oo ay ka shaqo bilaabaan maxkamadaha dowladda si ay u kala saaraan kuwa wax dulmiyey iyo kuwa la dulmiyey. xiisadii ugu dambeysay waxbarashadooda ayaa waxaa u soo galay macallin PhD ka haysta cilmiga qaanuunka. macallinku aad ayuu u caraysnaa. waxa uu bilaabay inuu ardayda ku qayliyo, qaar ka mid ahna canaanto. dabadeed arday ka mid ah ardaydii fasalka ku jiray ayuu ku amray inuu fasalka ka baxo. ardaygiina isagoo yaaban ayuu fasalkii ka baxay. macallinkii darsigii ayuu iska gudagalay. markuu casharkii dhammeeyey ayuu ardaydii u sheegay inay dhammaantood dhaceen oo ay qasab ku tahay inay dib u soo bilaabaan barashada maadada qaanuunka, oo aysan noqon karin qalinjabiyayaal bartay culumta shareecada iyo qaanuunka. ardaydii iyo maamulkii jaamacadda oo iyaguna yaaban ayaa macallinkii u yeeray, waxayna weydiiyeen sababta ay dib u soo bilaabayaan barashada. wuxuu ku jawaabay macallinkii, waxay arkayeen in arday aan waxba galabsan aan bannaanka u bixiyey. way ogaayeen in waxa aan sameeyey dulmi yahay, haddana iyagoo og ayay iska aamuseen, iskana indhatireen. ardayga aan bannaanka u bixiyey isaguna ima weydiin sababta aan fasalka uga saaray. sidaa darteed ardaydani uma qalmaan in la siiyo shahaado qusayso qaanuunka, sababtoo ah berri ma noqon karaan qareenno daacad ah oo u doodi kara xuquuqda kuwa la dulmiyey iyo kuwa wax dulmiyey. ardaydiina halkaas ayay ku qasbanaadeen in ay ka bilaabaan hayaankoodii waxbarasho oo ay dib u soo bilaabaan.